السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا ku saaxiibnay social mediaha meel kasta joogtaan iyo si walibaad maqlaysaan. Kusoo dhawaada cashirkeenii 18aad ee koorskeennii la magac baxay barashada maadada xisaabta aynu usoo gaabinay bamax. Insha Allah maanta cashirkeeni waxa uu ku saabsan yahay distance, fogaan. cashirkani waxaa soo qaadateen speed oo ahaa xawaare. maanta waxaa ku qaadan doontaan distance oo ah fogaan. marka waxaan u qortaa our topic oo qalinka weyn iga noqda sorry topic distance. waxaad noo qortaa example a car baabuur from Mogadishu kaasoo ka socda magaalada Muqdisho to kaasoo haddana ku socdo Afgoy magaalada Afgoy. has ayaa waxa uu leeyahay speed xawaare of kaasoo xawaarahaasoo ah 15 kilometer per hour. 15 kilometer ayuu jarayaa saacadii. if it took haddii ay ku qaadatay 2 hours 2 saacadood ay ku qaadatay inuu ka tago magaalada Muqdisho uu tago degmada Afgoy ee gobolka Shabeellaha Hoose. find waxaad soo heshaa the distance fogaanta between taasoo u dhaxayso Mogadisho magaalada Muqdisho and iyo waliba magaalada Afgoy. marka inta waxaan u qortaa solution halkan waxaad u qortaa solution halkan waxay u qortaa solution. marka waxaa lagu dhahay gaarigan waxa uu ka soo safray magaalada Muqdisho wuxuuna ku safray Afgoy. waxaa lagu dhahay haddii xawaaraha baabuurka xawaarada aragto waa speedka baabuurka uu la mid yahay lagu dhahay 15 kilometers per hour 15 kilometer saacadii ay ku qaadato. waliba timeka haddana wuxuu u socday waqti ay ku qaadatay 2 hours 2 saacadood. waxaa laga rabaa inaad soo hesho distance ahaa ama fogaanta u dhaxayso magaalada Muqdisho iyo Afgoy. marka hal mar waxaa ku tusaa sida qaacidooyinka la iska soo dhex saarayo anagoo isticmaalin qaacidada shalay speedka ayaa waxaa soo dhex saaraynaa distance qaacidada lagu helo. waxaan u soo qaadatay speed inuu la mid yahay distance loo qeybiyay time. speed waxa uu la mid yahay distance loo qeybiyay time. qaacidada cashirkan ka horeysa marka waxaa sameynayna waxaa loo yaqaano cross multiplication. isweydaara isku dhufanayna speed hooseeye numberka aan ama xaraf hooseeye aan lahayn hooseeye waxaa weeye markasto hal waa iyadana sharci weeye muhiimku waa inaan barto. kabacdi waxaa sameynaynaa cross baa sameynaynaa kan baa kan ku dhufanaynaa kanna kan baa ku dhufanaynaa kan waa isku dhufanaynaa kan iyo kanna waa isku dhufan hal lagu dhuftay distance. waxaa hore kuu soo sheegay wax kastoo lagu dhufta hal inay la mid tahay waa distance inay la mid tahay. speed lagu dhuftay time waxaa soo bixi doonta speed lagu dhuftay time. qaacidada waa kaas. distance waxaa loo dhahay speed lagu dhuftay time waa wala qaacidadaas isticmaalna marka noo soo guuro distance waxaa lagu helaa speed oo ah 15 kilometer per hour times time oo ah
2 hour. كبعدي حاسكو فنيسا meeshaan haddii cashirkii speedka aad la socotay calaamadaas barta loo yaqaano waxay asalka ay ka imaaday loo qeybiyo ka imaado soo maha marka hadda sidaa ku celina marka si aan idin tuso si iskula baxayaan habri habar waxaad leedahay 15 kilometer barti calaamad asalka ku wadana dhif bar hour time is 2 hour. saas marka aad marayso waxaan sameynaysaa habar iyo habar waa isla bixinaysaa waa meeshaan habar u qaybi waa hal meeshaan habar u qaybini waa hal kabacdi waxaan ku dhufanaysaa 15 ayaa waxaan ku dhufanaysaa 2 15 lagu dhuftay 2 will be 30 kilometerkaas la soo qaadaysaa haddii kale og tahay hadda wax kale ma sameyn hawri si iskula baxayana kuu sheeg laga yaabo inta joogto inta joogto isla baxaan inaad ku weerarto laakiin calaamadaas barta isintay ka yimaad distance loo qeybiyey time ee sama sidii la dhigtay hadda wax kale ma sameyn kabacdi hawar isla bixiyo kabacdi 15 kilometer ayaa waxaan ku dhuftay 2 waxaan isoo baxday 30 kilometer marka waan rajeynaa inaan fahantay cashirkeedii just measure محيد example سمين نعم مع يقدر exercise انت سمعهن example just to حق دكتور exercise exercise كان محاضرة وين صويش وحاولوا لا حكت الوسيلة هذا صدق في الوسيلة وحاول يربع انها تلفانتو distance time iyo waliba speed car baabuur ayaa moved waxa uu kasoo dhaqaajiyay from Mogadishu magaalada Muqdisho kasoo dhaqaajiyay to wuxuu ku wajahan yahay Kismaayo magaalada Kismaayo ku wajahan yahay moved wuxuu kasoo guuraa luuday Muqdisho ka tagay Kismaayo na tagay aad wuxuu ku tagay speed xawaare off oo ah 50 kilometer per hour halkii saac baabuurkaasi waxa uu jarayay 50 kilometer if it took hadii ay ku qaadatay a time waqti off oo ah 10 hours Muqdisho ilaa Kismaayo wuxuu ku tagay 10 saacadood find so the distance fogaanta between taasoo u dhaxaysa Muqdisho magaalada Muqdisho and Kismaayo iyo Kismaayo marka maxaa lagu siiyey speed waxaa lagu siiyey 50 kilometer per hour time waxaa lagu siiyey 10 hour kabacdi insha Allah jawaabtu waxay noqon doontaa 500 oo kilometer ay isku jiraan labada magaalo ee Muqdisho iyo waliba Kismaayo عشر كده هكذا يوكي جاي أستاذ عبد الباسط حسن نور إكس وإذن الله عشر كحي إنت يمكن قارن إن شاء الله والسلام عليكم يا سلام الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.